Hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay deeqar gaar ah u dirtay degmada Awdigle ee gobolka Shabeellada Hoose oo ka mid ah deegaanada ay ku sugan yihiin dadka abaaraha saameynta ku yeelatay kuwaas oo maalmihii dambe wajahayay xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ah. Deeqdan ayaa iskugu jirtay qaybaha kala duwan ee raashinka, waxaana horey deeqdan Soomaaliya ugu deeqay si dadka abaaraha saameynta ku yeesheen ee ku sugan gobollada dalka loo gaarsiiyo dowladda Imaaraadka Carabta. Goobta laga diriyay deeqdan oo ah keedka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan, agaasimaha waaxda gargaarka Sahra Cali Yuusuf, xildhibaan hore ahna wasiirka Badroolka Koonfur Galbeed Nuur Sido Baaba oo ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo jeeda degmadaas isagoo lagu wareejiyay deeqdan. Xildhibaan Nuur Sido ahna wasiirka Badroolka Koonfur Galbeed ayaa u mahad celiyay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka isagoo ballan qaaday in gargaarkan la gaarsiinayo dadkii loogu talagalay. Waxaa maanta inoo suura gashay inaan kala wareegno hay'adda maareynta masiibooyinka raashin gargaar ah ay leedahay degmada Awdigle kaasoo tiradiisu uu yahay 20 tan oo u dhiganta 667 qoys raashinkoodii. Insha Allah tacaala waxaa safarkan nagu kaalmeeyay oo nagu saacidi doona geesiyaasheena ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama wadanku uu ku jiro xaalad dagaal aan rabno gacanna inaan ku dagaalanno gacanna in maaragtay loogu fuliyo gargaar dadka shacabka ah. Waxaan insha Allah tacaala anagoo kaashanayna shacabka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan gargaarkan si nabadgelyo ah aan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu nagu gaarsiiyo degmada Awdigle. Halkan waxaan rabaa marka inaan ka cadeeyo inaan kala wareegnay raashinkan cadadiisu ay tahay kaalmadan oo markii hore ka timid Imaaraadka Carabta 20 tan hay'adda maareynta masiibooyinka aan si nabadgelyo ah aan kula wareegnay insha Allah tacaala hadduu Ilaahay raali ka noqdana waxaan si nabadgelyo ah ay ku gaari doonaan degmada Awdigle insha Allah tacaala. Waan ugu mahad celinayaa saraakiishan hay'adaha u shaqeeyaan maareynta masiibooyinka sida agaasimo Sahra iyo wasiir Cabdirashiid ama agaasimo Cabdirashiid sida quruxda badan ay nala shaqeeyeen iyadoo waliba ay aan marqaati ka ahay xilli haweena maqribka la galayo inay shaqaaluhu heegin yihiin ay u shaqeynayaan shacabka Soomaaliyeed. waa ku mahadsantihiin mudane agaasime insha Allah tacaala hadduu Ilaahay raali ka noqdo annagana amaanadan waxaan u gudan doonaa sidii aad noogu wakiilateen biidnillaahi kariim. Agaasimaha guud ee hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa ka warbixiyay tirada deeqdan ay ka kooban tahay isagoo ballan qaaday in hay'ad ahaan ay ka go'an tahay sidii dadka abaaraha iyo colaadaha saameynta ku yeelatay ee ku sugan gobollada dalka gargaarkan loo gaarsiin lahaa mid la mid ah. Waxaan raraynaa sidaad aragtaan macaawino ku socota Awdigle oo loogu talagalay dadkii ay saameysay abaartii iyo colaadihii. Sidaan la wada soconno wadanku wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u adag hadday noqoto dhinaca abaaraha iyo hadday noqoto dhinaca la dagaalanka nimankii argagixisada ahaa. wadanku wuxuu ku jiraa marxaladda noocaasa. annaga way naga go'an tahay waqti kasta inaan qaranka u shaqeyno. saacadaasoo habeennimo oo makhriba ayaan shaqaynaynaa oo aan taagannahay kaydkii hay'adda. waxay caddaynaysaa inay hay'adda maareynta masiibooyinku ay ka go'an tahay waqti kasta inay shaqayso annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Mudane Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha hay'adda Mudane Maxamuud Macalin ayaan bartaan ku taagannahay oo aan ku fulinaynaa amarkooda iyo awaamirtooda kuna shaqaynaynaa. sida aad la wada socotaan in dhoweedba wadanka oo dhan waxaa ka socotay macaawino in la wada gaarsiiyo sida caadadu ahayd markii hore diyaaradaha lagu qaadi jiray. say hadda aragtaan baabuurtii baan adeegsanaynaa. waxay daliil u tahay taasi wadankii xooggiisa in la xoreeyey oo aan adeegsanayno baabuur dhulka in la marsiiyo. insha Allah waxaa qorshuhu noogu jira inaan adeegsano doonyo iyo maraakiib haddii Ilaahay yiraaho meelaha kale aan ku gaarsiin doono insha Allah. Yuunus Duraan Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.